gacalkeed ha weydee hadday geenya kaa hebado asuu haayir nooliba yaqaan heeladkay mirato wiilkii hanqaadaba hadduu harabsadee fuulo heensaha inaad kala baxdaa soo hal gara maaha. qamaan bulxan oo ahaa gabyaa ay soomaalidu maansadiisa aad u jeceshahay tixihiisa ku halqabsato kuna dhaadato ayaa waxaa la yidhi beri gabar guursaday. waxay ahayd gabar aad u bilicsan oo quruxda in badan laga siiyey looguna roonaaday. ha yeeshee kolkii ay gabyaaga muddo wada dhaqmeen ayuu malaha ku arki waayey wax qiimi ah oo quruxda dhaafsiisan. fudayd uu u bogi waayey iyo hadba meel u kicid ayuu ku arkay kana biyo diiday. isaga oo sidaas gabadhii u saluugsan ayaa dhalaartii dambe waxaa u soo hargalay iyada walaalkeedoo sidii ay caadadu ahayd yaradoon ah. qamaan wuxuu goostay inuusan gabadhaa wax yarada ka bixin, ceebaheeda inuu walaalkeed caddaan ugu sheegana wuu ka sariigtay. kolkaas buu u sarbeebtay. isaga oo iyadii ka hadlaaya asii baal goroyo iyo faras ugu sarbeebanaya ayuu saydigii tix gabay ah ugu warramay. wixii uu ku tashadayna si asluub leh ugu sheegay. wuxuu yidhi baal goroyo waa lagu ogaa inuu bidhaamaaye berbere maalintuu tegey waxaa bi'iyey miisaane bid koray ku tahay shaygii fudud beesad lagu waaye boos waxaan jeclaadaba markaan baayacaan nacaye wada ba'an bini aadan kaad waaye barataaye. dadku waayadaas murtidhaari buu u badnaayee ninkii yaradoonka ahaa kolkuu tixdaa maqlay ayuu isaga oo aan erey soo celin dib isaga noqday. maxaa yeelay hadduu hadal wax dheef leeyahay loo dhammeeh. waa taa sarbeebtu. ninbaa isna haweenay uu qabay furay, waxayna ahayd waagii uu furiinku ceebta ahaa ee uu dhulka soomaalida sida aadka ah ugu yaraa la iskuna ceebin jiray. rag badan oo qaraabo iyo wadayba ay ahaayeen ayaa ninkii eedeeyey iyaga oo aan u dhabagelin una kuurgelin sababta ku qasabtay inuu afadiisa ka maarmo. wuxuu ka xishooday inuu sababta runta ah dadka u bandhigo, sidaa darteedna wuu iska aamusay. markii loo garaabi waayey oo uu arkay in dharaar noolba eed lala daba taagan yahay ayuu sababtii diirka inta ka qaaday weliba gabay ku sheegay. markaas buu yidhi gacalkeed ha weydee hadday geenya kaa hebado asuu haayir nooliba yaqaan heeladkay mirato wiilkii hanqaadaba hadduu harabsadee fuulo heensaha inaad kala baxdaa soo hal gara maaha. waa maxay sababtu? waa gogoldhaaf. miyuu carabka ku dhuftay? xaasha, waa maya jawaabtu. wuxuu ka hadlay geenya hebad noqotay oo barbaarkii soo gaaraba ogol, hadalkiina wuu dhammeeyey. waa hadal asluub leh oo sidii kale oo loo sheegaaba ay soomaalidii hore ceeb ku ahayd. waa taa sarbeebtu. tusaalaha kale ee